السلام عليكم ورحمة الله. maalin wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan xilli walba ku tahay ku soo dhawow maalin walba showgad Ciisadin maanta Ramadaanka uu yahay maalinta saddexaad barnaamijkeena maalin walba show inkastoo aan ka habsaamno laakiin waxyaalo badan inaan ku soo kordhinaa jecelnahay waxaan rabnay arrimo khaas ah oo muhiim ah inaan ka hadalno ee ka mid tahay waxyaalo badan oo soo kordhaya jiro waxaan jeclaan lahaa culimadeena inay ka hadlaan ana bacodsanaa culimadeena inay ka hadlaan wax kale ma ahan gender problem kan jiro wiilka gabadha laga dhigayo gabadha wiilka laga dhigayo inay culimadeena ka hadlaan islaamka Soomaalida especially culimadeena Soomaalida islaamka inay ka hadlaan arrin waxaa jira buug la dhaho inta koran ku soo saaray GBC la dhaho buugaas waxaa qoran in la dhaho ML Web iyo sawiraantii waxa dhan u sameeyay buugan GBC la dhahayo waxa maqli jirnay buug la dhaho ABC oo alphabeticalka naxwaha Englishka dadka lagu baro laakiin buugan marka fiirisid GBC sababta loogu bixiyo wax kala ma ahayn waxa loogu bixiyo wuxuu ahaa ilmaha in la maran habaabiyo waxaa loogu talagalay specific si qaas ahaan caruurta joogta North America GBC na waa fahmi kartiin okay waa totally waa isku dhaxyaa in cunuga uu wareero okay labi dadig inuu fahmi waayo wuxuu yahay buuga wuxuu ka bilaabanaa si gooni loo fasirayaa B bisexual laga dhigay okay you can be boy or girl wili gabar mid ka doonta noqon kartaa soo marka buuga muhiimada loo qoro waxay dadka lagu maran habaabiyo especially dadka qurbaha jooga of course targetku weyn wuxuu ahaa North America iyo galbeedka wadamada galbeedka sida Europe iyo North America in buugaas uu ka hergalo runtii uu ka hergalay suuqyada meel walba laga helo okay bookshop ka daatagto waa ka helaysa GBC haddana waxaa la bilaabay in caruurta intii buuga la qaado loo geeyo iskuulada loogu geeyo caadi loo baro xitaa lagu qasbo xitaa ilmaha in bartaan waxaa loogu talagalay specific si qaas ahaan caruurta joogta North America in la baro ABCD di ataqaanin ma waa ABCD cusub eeda waxay u taagantaa wax kale B-da wax kale u taagantaa bisexual caruurta waxa la barayaa wax aysan wili gaarin okay aqligooda iyo wax walba ka weyn okay waxaysan gaarin ayaa la barayaa marka buugan waxaan jeclaan lahaa qof walba Soomaali inuu ogaado caruurtiisana maadaama Soomaalida badanaa caruur badan ay ku leeyihiin North America caruurtoodana ay joogaan waxna ay ka bartaan iskoolada waxaan dhihi lahaa please buugaas indhow yeeshta sababta loo soo saarana wax kala ma ahan ilmaha in la marin habaabiyo okay in labi dadig midku yahay inuu kala garan waayo okay gender in isku khaldo in cunuga uu kala garan waayo inuu wiil yahay inuu gabar yahay hadduu wiil yahay iskuulka markuu joogo waxa looga sheekeynayaa inuu gabar yahay hadday gabar tahayna waxa looga sheekeynayaa inay wiil tahay okay dheeshaasna waxay ka socotaa Western world wadamada galbeedka dheeshaas wado sababtay u wadaan aakhir sabaana la jooga taasina ay weydiisid ma sababtay u wadaan waxaan waa wax isla socdo dagaalkan ka socda Ukraine iyo Russia okay waxyaalo badan jira adduunka ka socdo marka Soomaaliya waxaan dhihi lahaa wixii waalid ah oo maanta qurba joogo caruurtaada please ogo waxa la siinayo xitaa ma ahan waxa la barayo kaliya cunugaaga waxa la siinayo xitaa ciyaar ma cunugaaga waxa afka u galay ma ogta banaanka markuu aado cunugaaga wuxuu cunayo ma ogta waxyaalo qaar waxaa jira testosteronkiisa iyo waxa dhan iyo adii hormoneskiisa bedela cunugaaga hadii la siiyo ka war wax hormoneskiisa bedela hadduu gabar ahaa wiil ka dhigay hadduu wiil ahaana gabar ka dhigay wax ka xun ma jirto taas marka ilaahan ka magan galnay taas dhacdo wayna fiicanta waxyaalaha qaar in iska wacyigelin isku sheegno waxaana jeclaan lahaa aad u jeclaan lahaa culimadeena Soomaalida
inay u istaagaan dadkan inay u sheegaan waxyaalaha socdo dhibaatooyinka socdo maalin walba hal waxa ka hadlana okay boqol waxa jirta ummadda maalin walba dhan walba laga soo ataagareeya caruurteena la ataagareynaya okay jiilka dambaan dhaleena la rabaa in la baabiyo okay and sometimes waxa dhici karta adigan daawanaya xitaa haddii aad ka badbaaday adiga hormoneska hadduu okay yahay gabar iyo rag waxaa tahayba waxa dhici karta cunugaad dhalaysid inuu khatar ku jiro already waxa lagu siiyay oo xaantaada inay ku jiraan kadibna berito la ay banaankii maato okay markii aad cunug dhashin cunugaas waxaadan ka filan ma wax kale inuu noqdo taasna ilaahan ka magan galnay inta ilmaha haysato ilaaha u daayo inta haysanna ilaaha siiyo caruurteena waxaan jeclaan lahaa priority oo koowaadna ayaga siin meeshii aadayaan waxay akhrisanayaan iyo waxay afka gelinayaan cunayaan sababta adduunka zaid u halaabay maanta meeshuu marayo waxay tahay cunuga wuxuu cunaya afka wuxuu gelinayo xitaa waxa loogu soo darayaa wax bedelayo hormoneskiisa gudaha okay waxa jiro gabar u dhalatay adeeg iyo ragnimo okay waxay leedahay feminine ma waa masculine badan ay leedahay la gabar wiil amal waa gabadhaas waxa la isku dayayaa in wiil toos laga dhigo soo waxa laga jarayaa naaseed qalad waa okay dadka qaar waxa dhici karta inay waxa Soomaalida kama jirto na way ku soo socotaa Soomaalida waxa jiro wiil oo feminine iska jiljilacsan jira waa la sii qorqoraya waa la sii jilcinaya okay waxa loo yeelaya wax uusan ku dhalan jirkiisa Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa waxaas inaad indhow yeelataan especially waxaan jeclaan lahaa culimadeena Soomaaliyeed inay ka hadlaan arintaas aniga nagu sii dheeraan buugan KBC la dhahayo oo halkan saaran iska ilaaliyo caruurtiina uga diga sababta uu marin habaabinayo okay qof rabo ma jirto cunugiisa oo gabar ahaa inuu wiil noqdo ama cunugiisa wiil ahaa inay gabar noqoto qof walba wuxuu rabaa cunugu dhalay sidoo ku dhalay inuu ahaado inuu jandagiisa isbedelo ma jeclo ma sheegna aabaha ama hooyadaas inay wax ka sii yihiin haddii ay rabtana so aniga Izzuddin Jamaldin Adoni waxaan leeyahay peace and love maalin wanaagsan intaan dib u kulmo doono waxaan leeyahay amaana Allah